siyaasiga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah milkiilaha Hotel Elite ayaa waxa uu xaqiijiyay in ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay gudaha u galeen hotelkiisa ayna damacsan yihiin inay burburiyaan hotelka. War qoraal oo ku soo qoray barta uu ku leeyahay Facebook ayuu waxa uu ku yiri siyaasiga lagu magacaabo Cabdullaahi Maxamed Nuur kaasoo la soo noqday la taliye sare ee arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku yiri maanta ay taariikhdu tahay 6 Juun 2026 saacadu markii ay ahayd 5 saac iyo 30 daqiiqo waxa xoog ku galay hotelka Elite oo goob ganacsi oo ciidamo hubeysan hub aad u culus oo ay ku jiraan walxaha qarxa sida miinooyin iyo kuwa dhismayaasha lagu dumiyo waxayna la wareegeen gabi ahaanba hotelka ayagoo ilaaladii iyo shaqaalihii koobnaa ee gudaha ku jiray isugu geeyay goob gaar ah una sheegay in ay baarayaan hotelka balse hub culus ay gudaha la galeen waxa uu muujinayaa in qorshuhu aana ahayn baaritaan balse uu yahay in hotelka la burburiyo lana boobo dhammaan hantida taala gudaha hotelka kadibna ay ku soo sawiraan hubka culus ee gudaha hotelka ay geliyeen subaxan si ay u xalaaleystaan boobka hanti iyo burburinta una sumcad xumeeyaan goobta ganacsiga ciidamadaas waxa soo diray Xasan Sheekh Maxamuud asiga ayaana qaadaya mas'uuliyadaasi iyo wixii loo geysto goobtaasi ganacsiga. Siyaasiga caanka ah Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waxa uu si kulul uga hadlay hotelka gudaha loo galay isagoona sheegay in ciidamadaasi ay ka amar qaataan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena uu qaadan doono wixii ka soo baxa ama dhibaatada iyo burburka halkaas laga geystana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu qaadan doono. saacadii la soo dhaafay waxa warbaahinta aad ugu baahay in gudaha loo galay Hotel Elite kaasoo ciidamada ammaanka ay sheegeen inay ku tuunsan yihiin hub aad u culus hogaamiyaha mucaaradka ee halkaasi ka dagaalamayay muddo 2 maalmood ah hubka iyo sidoo kale gaadiid iyo waxyaabaha nooca lagu dagaalama halkaasi ku jiray balse Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah siyaasi caan ah sidoo kalena ah milkiilaha hotelka Elite ayaa waxa uu si kulul uga hadlay arrintan isagoona soo hadal qaaday in ciidamadaasi ay sheegeen inay baarayaan goobaha sidoo kalena halkaas ahayd goob ganacsi dad badan ay degan yihiin hanti tiro badan ay ku jirto waxa uu sheegay in dadkii waaridiyaasha ahaa si gaar ah meel gaar ah la geeyay halkaasina ay sheegeen in la baarayo